دتك رد وادي بتاع إلين يا ناقي إدي جرواكو تايرنا واكو يلنا أو إصاع عيوها ويلي ما عايز ويلي عبد الرحمن عبد الشكور هذا كورا برامج لقوانا اسكو ارغني سؤال سؤال ويدي يجي بجواب نص دولار كيغاري حسبيس مقدرا بلاش او كونكيس ميلا سو دغدغا نص دولار كيغا ماركيس ابو نص دولار كيغا ماركيس انت اسكو باس غورغيلو اي علاما بوسو قادا علي تاكله ويليغا ولا نم شرح مدحوينه علي تاكله دا عاودنا هردو ولا اكو قربو يوتيوب كا كسو جفا تيك توك يغو ماalo weligin caatam Soomaali waxa kala yaabay marka runta iyaga taabanayso marka sheegto uf dhilo wax kala biya qaarin weligin soo dhaaf kama tiriidka xirima weydin fura reen jawiya adid soo saada ana waraas wadaay ni itus itaabsi waxa aragta sheeg waxa arkina isku sheegin ninkii laga filayay meel sare inuu yahay hamigiisa yahay mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliyeed ayaa gabar yar oo Soomaaliyeed jawaab ay weydiisay ayaa ugu bedelay aflagaado iyo jejes asigoo ula jeedo waryaanaya aaso ileed oo ku ximaayo inuu leeyahay ina adeerkeed taas waxay u cadeynaysaa inuu yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur nin qabyaalada ay ku weyn tahay una qalmin madaxweynaha Soomaaliyeed taas ayay dad badan hore iiga yaabsheen Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu tilmaamay inuu yahay qof aad u liito ayaa hadda cadaatay inuu yahay qof aan adkaysi iyo xishood aan lahayn haddii aad dhahdo qofka aaso ileed ulujeedada aan ka leedahay qof kasta ayaa fahmi karo qabyaaladana ma aha shay wanaagsan mana aha inaa adkayso weyso adigoo u tartamaya xilka ugu sareeya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Farxiyo ayaa dagaal baraha bulshada ku dhaxmaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa laga gar helay haddii ay runta tahay erayada oo adeegsaday Cabdiraxmaan Shakuur haddii ayna ka ahayn afkiisa ka soo tafin ay tahay ulujeedo amba dulmi oo u geysanayo gabar Soomaaliyeed oo wariye Soomaaliyeed Farxiyo ayuu ku xadgudbay iyo dhaqankii Soomaaliyeed taasna ma aha mid loo adkeysan karo waana qofkii damiir leh amba garasho leh waa inuu jawaab ka baxshaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadka kugu eedeeya badda haddii yihiin been iyo run waa inaan ka jawaabtaa si kalsooni leh oo adkaysi u leh ma aha inaan ku jawaabto orad aaso ileed adoo ula jeedo ina adeerka badda ay ku agtaalaa adigoo hoteelka quruxda badan miya aqoori weysay ayay dadka qaar dheheen taas ayaa Farxiyo aad u soo karbaashtay karaamadana ka qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maalmihii ugu dambeeyay bilaabay tuugsi aad u xun asigoo caadaystay xumeynta iyo aflagaadada horena u caadaystay inuu madaxda Soomaaliyeed aad u aflagaaday Cabdiraxmaan oo lagu eedeeyo eedii ugu weyneed qof Soomaaliya siyaasi ah loo jeediyo kuna inuu badii Soomaaliya ka iibsaday Kenya taas ayaa Cabdiraxmaan dib iyo kuleel iyo masiibo ku noqotay Farxiyo ayaa ku soo joogsatay haddii maanta jawaabta si fiican ugu jawaabi lahayd lacag badan ayaan ku sii lahayd dagaalkii Farxiyo iyo Cabdiraxmaan Shakuur oo baraha bulshada ka bilowday Farxiyo oo qof karti iyo hibad ka muuqato ayaa aniga raali kama nihin haweenkii in lagu xadgudbo